Maxamed Muuse Al-Khawarizmi waxa uu dhashay sanadkii 781 miilaadiga, waxaana ahaa caalim Muslim ah. Waxa uu ku tirax tagay culuumta xisaabta, falakga, iyo juqraafiga. Isaga iyo waalidkii waxay u safreen magaalada Baghdad. Al-Khawarizmi waxa uu dhamaystay cilmi-baaristiisii intii u dhaxaysay 813 miilaadiga ilaa 833 miilaadiga, waxaana loo dhiibay maktabadda Al-Hikma ee uu aasaasay Khaliifkii Ma'muun, waxaana uu kula ballamay inuu ururiyo buugaagta Greek ah oo u turjumay luqadda Carabiga. Al-Khawarizmi waxa uu ka faa'iidaystay buugaagta, waxaana uu bartay culuumta xisaabta, falakga, juqraafiga, iyo taariikhdaba. Waxa uu alifay buugaag fara badan, waxaana uu ku daabacay buugaagtiisa luqadda Carabiga oo markaa ahayd luqadda ugu horreysa dunida ee wax lagu barto. Kuwii ugu muhiimsanaa buugaagtiisa waxaa ka mid ahaa Kitaab al-Mukhtasar fi Xisaab al-Jabr wal-Muqaabala oo haatan aynu ku dhiganno xisaabaadka, waxaana la turjumay ku dhowaad 1145 miilaadiga, waxaana lagu turjumay luqadda Laatiiniga, waxaana turjumay saynisyahan Roberto Manchester Chester. Intaa kadib, ereyada algebra iyo zero waxa ay galeen luqadda Laatiinka. Buugga Roberto Manchester Chester waxaa loo adeegsaday buugga ugu weyn ee xisaabta qarnigii 16aad. Al-Khawarizmi waxa uu dhintay 850 miilaadiga, Allah u naxariistee.